maxamed cadde oo soo akhriyay warbixinta ay qortay jariirada New York Times ayaa barnaamijka ila falanqeynaya. maxamed, hadda arrintan waxa la leeyahay xitaa waxay gaartay in la isku cagajugleeyo la yiraahdo saxaafadii ka hadasha dacwad ayaa lagu soo oogi doonaa. laakiin aynu xigana New York Times maxay qoraysaa? mas'uuliyiin sare oo Mareykan ayaa u sheegay wargeyska New York Times in hubkii Mareykanka ee kaydka ahaa uu aad hoos ugu dhacay dagaalka Iiraan aawadi, wuxuuna gaaray xaddi walwal weyn ku abuuro madaxda militariga. waxayna horseeday in hub laga soo qaado loogu talagalay in lagu ilaaliyo Asia iyo Yurub si dagaalka Iiraan loogu galo. arrintaasna waa digniin iyo saameyn muddo dheer socon doonta. Iiraan dagaalkii lala galay ayaa ku qasbay wasaaradda dagaalka ee waddanka Mareykanka inay si dhaqso ah maraakiib u soo weeciso dhanka Iiraan iyo diyaarado iyo nidaamkii difaaca cirka iyo Yurub iyo Asia ayaa laga soo qaaday oo bariga dhexe ayaa loo soo wareejiyay. saraakiishuna waxay sheegayaan ayagoo hoosta ka xariiqaya arrintaasi waxa ay horseeday inay saameyn weyn yeelato oo waxa weeye keliya qalabkii dayactirkooda iyo niyaddii ciidamada ayay saameyn weyn ku yeelato. qalbi jab ayaa ciidanka Mareykanka soo wajahay. waa gartay meelaha ugu daran ee walaaca uu ka jiro xagee lagu sheegay? taliska badda Pacifiga ayaa noqotay goobaha hubka laga soo qaaday aadka loogu isticmaalay waddanka Iiraan. waxaana la soo xigtay sarkaal sheegaya in ciidamadii Mareykanka ee koonfurta Kuuriya ku sugnaa ay aad u nugul yihiin haddii dagaal uu halkaasi ka bilowdo oo waqooyiga Kuuriyada waqooyi lala galo, kadib markii wasaaradda dagaalka ay farsamo ahaan u soo wareejisay agabkii militariga keentana gobolka bariga dhexe. qaar ka mid ah nidaamka difaaca cirkana ay ka soo wareejisay gobolkaasi. waa gartay haddii marka arrintan aynu ku sii soconno ilaa intee ayay gaarsiisan tahay yaraanshaha la sheegayo in gantaalada difaaca Mareykanku ay sii yaraanayaan? Mareykanka wax allaale iyo wixii gantaal ahaa uu haystay oo kumanyaal gaarayay oo qaarkood malaayiin dollar joogaan ayaa uu ku isticmaalay dagaalka waddanka Iiraan. in la bedelo ama bedelkoodii in la soo saarana sanado badan ayay qaadanaysaa. sida laga soo xiganaya saraakiishaasi gudoomiyaha baanduulayaasha ciidamada qalabka sida ee waddanka Mareykanka Dan Kane ayaa u sheegay ama ku wargeliyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dagaalka Iiraan intuuna bilaaban ka hor in ay jirto khatar ah in hubka Mareykanka uu sii yaraanayo kaydka. saacadee Trump ayaa go'aansaday inuu dagaal galo, wuxuuna aaminsanaa dagaalkaasi inuu noqonayo mid si dhaqsa u dhamaada. wargeyskan Mareykanka ka soo baxay New York Times ayaa soo xiganaya laba ilood oo macluumaadkaas xogogaal u ah oo sheegaya in hubka kaydka ah ee gantaalada Patriotka loo yaqaano ee Mareykanka gacantiisa hadda ku jira ay ka yar yihiin 1700. wargeyska la yiraahdo Newsweek magazine ama warsidaha Newsweek ayaa dabool ka qaaday warbixin uu Jimcihii daabacay in ciidamada Mareykanka ay waxay hub haysteen oo dhan kayd ahaa ay isticmaaleen. hubka ay aad ku isticmaaleen waxaa ka mid ah ATACMS iyo hubka sida sugan gantaalada sida sugan wax u burburiya. warbaahinta Mareykanka qaar ka mid ah ayaa ku warramay 80% gantaaladii ka hortegi jiray gantaalada kale ee THAAD la yiraahdo ayagana inay dagaalka ku dhamaadeen. kala bar hubkii difaaca cirka ee Patriotka ayagana in ay dhamaadeen. waa gartay laakiin maamulka Mareykanka Trump
wuu beeninayaa arrintan maxay tahay sababta loo beeninayaa xogtan warbaahintu ay sheegayso afhayeenka wasaaradda dagaalka ee pentagonka loo yaqaano ee waddanka maraykanka Sean Hannell ayaa beeniyey warbixino la xiriira in maraykanku hub la'aan haysato wuxuuna sheegay warkaasi in aynan sal iyo baar toona lahayn wuxuuna intaasi ku daray in ay hadday muhiim noqoto maraykanku uu meeshuu rabo iyo wakhtigu uu rabo uu weerarka qaadi karo haddii madaxweynaha amar ka helo gabar afhayeen oo ah aqalka cad ee maraykanka la yidhahda Caroline Leavitt ayaa iyadana dhankeeda sheegtay bayaan ay ka soo xigatay ama bayaan laga soo xigtay gabadhaasi oo New York Times lagu qoray in hay-adaha difaaca waddanka maraykanka ay soo saaraan hub ka badan intii hore waxayna ku nuuxnuuxsatay waddankeeda in uu ballaarinayo warshadaha hubka lagu soo saaro iyo qalabka kale xawli aad u badanna warshada lagu dhisayo sida laga soo xiganayo New York Times Trump maamulkiisa ayaa ka shaqeeyey inuu shirkadaha hubka sameeya militariga inay isku dayaan inay dardargeliyaan inay ballaariyaan wax soo saarkooda xagga qalabka militariga marka laga gudbo dadaalkaasi dowladda maraykanka waxay u baahan tahay in ka badan 2 sanadood sidii ay ku soo celin lahayd hubkii ay patriotska ahaa ay ku isticmaashay nidaamka difaaca cirka gantaaladii Iiraan ka imaanayay patriotka loo yaqaano ee dagaalka Iiraan ay ku isticmaashay waa gartay muxuu marka maamulka Trump uga caroonayaa warbixinadan saxaafadda loo dusiyey afhayeenka aqalka cad gabadha la yidhahdo Leavitt ayaa uu weerartay cid allaale ciddii ka hadasha hubka militariga maraykanka ee sii yaraanaya waxayna sheegtay ciddii wardusisa ama macluumaad militari oo aan la ogolayn warbaahinta siisa waxa ay ku tallaabsanaysaa khiyaano qaran waxayna ku xadgudbaysaa qaanuunka federaalka ee waddanka maraykanka waxayna ku nuxusatay qofkaasi waa la maxkamadaynayaa waxaana laga qaadayaa tallaabada ugu culus ee uu qaanuunka qaadi karo ayaa lala tiigsanayaa Trump ayaa waxaa aad uga careysiiyey warbixinada warbaahinta ay kaga hadlayaan hubka maraykanka ee sii yaraanaya wuxuuna amar ku bixiyey in olole lagu qaado oo baaritaan lagu sameeyo dadka warbaahinta u dusinaya wararkan ee xukuumadda ka tirsan wuxuuna ku baaqay in la maxkamadeeyo wuxuuna ku dooday ciddii daboolka ka qaada dowladda maraykanka macluumaadkeeda xilli ee dagaal lagu jiro waxa ay daciif ka dhigaysaa xilligan xasaasiga ah dowladda maraykanka oo dagaal kula jirta waddanka Iiraan waa gartay waxaa jirta in maraykanka xifaaltan uu kala dhaxeeyo ruushka iyo shiinaha oo isbahaysanaya haddaana u muuqda inay awoodooda aad u kordhinayaan walow ruushka dagaalka Ukraine uu ku lug leeyahay arrintan sidee bay uga faa'iideysanayaan ruushka iyo shiinaha hubka maraykanka sida weyn hooska ugu dhacay macnaheedu maaha baa la yidhi inuu saameyn ku yeelanayo diyaargarowga maraykanka awoodiisa militari sida khabiirada ay wargeyska u sheegeen hase ahaatee waxa ay dhiirigelinaysaa ruushka iyo shiinaha in ay xisaabaadkooda dib ugu noqdaan oo ay samaystaan xisaabaad istiraatiijiyadeed wargeyska ayaa waxa uu soo xiganayaa sarkaal maraykan oo arrimahan la socda xogta difaacana aad uga warhaya oo ku waramaya ruushka iyo shiinaha in ay aad ula socdaan hubka maraykanka ee kaydka ah sida sarkaalkani uu xusayo ruushka iyo shiinaha macluumaadka inta badan waxay ka qaataan ilaha rasmiga ah ee dowladda oo ay ka mid tahay miisaaniyadda ay koongareska sameeyaan iyo macluumaadka kale ee shirkadaha difaaca ay sii daayaan iyo sawirada ay satellite ku qaataan iyo xog ay dabagal iyo ku soo urursadaan iyo ciidankooda sirta waxaana muuqata sida hadalka loo dhigayo lafagurayaasha u dhigayaan loona sheegay wargeyska New York Times in dagaalka Iiraan uu sii dheeraado ay dan weyn ugu jirto wadamada shiinaha iyo ruushka oo keenaysa in maraykanku uu ka haro tartanka
uu wadamadaasi kula jiray. intaasna waxaa dheer sida warbixin gaar ah oo lagu daabacay warsidaha Atlantic in hubka dhibaatada ka jirta Mareykanku in ay noqotay arrin aad muhiim u ah oo qaabeynaysa dagaalka hadda uu Mareykanku ku jiro laftirkiisa, waxaana aad hoos ugu dhacay baa leeyahay dhaqdhaqaaqa military uu samayn karo maamulka Mareykanka maadaama aan hub iyo rasaas lahayn. waa gartay waayahay maxamed warbixinta sidoo kale waxaa lagu xusayaa markaa istiraatiijiyadda Mareykanka sida arrintan u saameynayso bacdama quwad weyn oo ku xisaabtamaysay colaadahan adduunka ka taagan iyo kuwa kale ee la filan kara inay yimaadaan. haddii arrintan ay caddaato maxay warbixintu ka sheegaysaa saameynta ay yeelanayso? Mareykanka awooddii istiraatiijiyadeed ee uu lahaa ayaa meesha ka baxaysa ama lumaysa, iyadoo hubkiisa kaydka weliba gantaalada fogaanta dheer ku shaqeeya ay dhammaadeen sida warbixinta xusayso. waxaana hoosta laga xariiqayaa gantaalada Mareykanku haray iyo hubka Mareykanku haray ayaa aad iyo aad u hooseeya, waxaana lagu tilmaamay 20% in wasaaradda dagaalka hubka ay u baahnayd inuu Mareykanka kayd u ahaado oo hadda marayo oo ah xadkii ugu hooseeyey. hoos u dhacan weyn ma aha mid khatar u keenaya jawaabta Mareykanka uu ka bixin karo qalalaasaha Iiraan, laakiin dowladda Mareykanka awood ay uga hortagto dagaal kale oo Asia ka dhaca iyo ama laba dagaal oo Ruushka iyo Shiinaha lala galo ayaa waxay noqonayaan mid khatarteeda ay sii ballaaranayso. waa gartay waaya maxamed haddii inta aynu kaga gudubno warbixinta wargeyska New York Times qobarada kale ee Mareykanka aynu eegno waxay arrintan ka yiraahdeen maxay ka yiraahdeen ilaa iyo hadda arrintan? Mareykanka inuu hubkiisa gabaabsi yahay wax cusub maaha, hore ayaa khabiiro oga hadleen intii uu dagaalka socday sida uu Mareykanku u isticmaalayay gantaaladiisa marka la fiiriyo iyo gantaalada ka hor yimid guuxooda ka dheereeya ee aan la iska difaaci karaynin burburka weyn geysanaya oo Mareykanka ka kiciyey khiyaaligii uu aaminsanaa in Iiraan ay tahay waddan si sahlan dagaal looga adkaan karo ayaa waxa uu la kulmay xaalad aad u adag. tan kale oo ayadana khabiiradu ay ka hadleen waxa weeye madaxweynaha Mareykanka oo aanan khibrad military lahayn, isaga laftigiisa waagu dhalinyarada ahaa ka dhuuntay inuu militarigii Vietnam loo qoriyey ka qayb noqdo, khibrad kale aan lahayn. tan kale nin aad isula qab weyn oo aanan waxba dhegaysanaynin oo khabiiradii militariga dadkii waxgalka ahaa oo dhan shaqada ka saaray iyo dadkii ay ahayd inuu la tashado. haddana waxaad moodaa in dowladda Mareykanku ay wajahayso xaqiiqo dhab ah oo ah Iiraan inaan la muquunin karaynin, gantaalada ay haysatana ay yihiin gantaalo ay ayada samaysatay kana duwan kana xawaaro dheereeya kuwa Mareykanka nidaamkiisa difaaca. waxaana muuqata dagaalkii in hadda la isku raacsan yahay istiraatiiji ahaan Mareykanka inuu jabay, wadaxaajood Mareykanka sida u rabeen ayna soo socon. Iiraan waxa ay rabto haddii uu yeeli waayana sida hadda muuqataba Mareykanka uu ka cararo gobolka Bariga Dhexe oo wadamadii gobolka Bariga Dhexe ugu dhaqaalaha roonaa ay hadda xulufo kala raadsanayaan maadaama Mareykankii uu jabay. waa gartay arrin waxaa soo hadal qaaday sida qobrada sheegayso ah in uu ka dhaga adeegay madaxweynaha Mareykanka talooyinka la siinayay. marka xaggee marka xogta uu ka helaya hadduusan ku qanacsanayn xogtii la siinayay saraakiishii ciidamada iyo kuwii sirdoonka? waxaa leeyahay waxaa xogta siinayay waddanka Israa'iil oo muddo dheer ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu ka shaqeynayay sidii Mareykanka iyo Iiraan isugu dhufan lahaa. waxa uu aaminsanaa Netanyahu in Mareykanka iyo Iiraan hadday isku dhacaan Iiraan dowladda la ridi doono, la bedeli doono.
marnaba kuma uunan fekerin in maraykanka uu jabi doono haddana wuxuu ku eedeynayaa guul darrada soo hoyatay maraykanka laftirkiisa oo uu leeyahay dagaalkiisan joojinin haduu dagaalka joojiyo uu maraykanka meesha ka huleelo cidda dayacmi doonta oo dhibaatada dhan qoorta u sumi doonta waa Israa'iil. waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadkan aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir waa aynu barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu